السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكمرتدا هدفك الله صعده تليها أي سفي عن وهذا الدونة لو وحنا كالكالياش تليها نهي هي أديك وإذن دحيا نهي وحنا هندد إسكور قبيت لكن تليها ما أنت صعدالك وصومري وشلا يدر هذه حالة هبي هو السفر كوها قريب كم ذا آياتين تليه حكي مذي دانت وقش الشيء الدفاع هيرشبيله أو يشكل الجدود وكيمد دانت أوجو حجيسة دانت أوجو حجيسة وحكي مذي دفاع هيرشبيله الجدود إسكساريين وحولسوا كل معيدة ماذا حوق الدرك الصومالية معويس ليدا عيدا كحوق الدرك الصومالية كعاورة يصدرك يدتك وحولسوا كل مدة سيدي نوكلا السجو حوي مذي وحكلا مع الدولة دوسوا وكيلته وحيتاي إلى أنت الدلك يدتك الدين تدتك أود جعلمايا إن أو دولة دعوة وكيلها إسلام مركزنا دتك يدجان كأو وكذا جيست مسؤولين تمركز ماشي جوكته عيدا كماشي جوك الدنا هذا كعنت جوجل هذا أسوة وقت اللي عندنا ومقلدين دلك هذيك إسكال بوركي سر هذيك على باهدي سر هذيك إسكال دلك عن ودلك إنه عندنا ومقلدين ميسين وجورجين وجوفكين وجسركين دجال بقى وحوك السعودة ماشي اللي راح رداره dadka iska leh deegaanka ayaa ka dagaalama dagaal baa wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo ii sheeg galcad dadka deegaanka ka dagaalamay dagaal baa wuxuu ka socdaa alkawsar dadka deegaanka ka dagaalamay dagaal baa wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo ii sheeg cali axmed dadka deegaanka ka dagaalamay kuwaas limitiin waxna dawladnimada ayaa xageeda laga xalliyaa waxna dadka deegaanka xalista waxyaabaha anagu aan xoogaalka u nahay oo xallin doono taliyaha idin sheegi doona waxyaabaha laga maarmaanka ee mustaqbalka aad noqon doontaan taliyaha ayaa idin sheegi doona asoo ka wakiil madaxweynaha iyo wasaaradda gaashaandhigga hortiina ayuu ka caday doona meel aad ku qoro doontiin waxa aad ku wax kala maahan annaga hal hadafaan leena hadafku muxuu yahay nimankii qaroofayda wata in dalka ka baxaan annaga wax kala uma nimid qaroofay nimankii wata dadka qowrici jira in dalka ka baxaan ayaad u timid annaguna u nimid wax kala oo la isku ma jiraan wuxuu yiri dhayda dhan hortu hadagtay dhayda dhan hortu waa degaysaa muhiimadda ugu ballaaran waxay tahay in horta dhayda dhanno dhaydu maxay tahay nimanka habiyeen maal hawada lagala dagaala in dhulka kala dagaashaan wuxuu yiri nig barbarka ka baxdaa waa bakay la qaleenoori waashaan wax kala meesha ma yaalin ninku haduu gurigiisa inta oodan sameesto siciisa uu soo waraabsado beertiisa uu linto asaa isku galaday shabaab in la baxsho la dilo la waayo jalawga laga sukusho sisinta laga rarto galida laga rarto ogaal la'aantooda waa waxaan u soconno waxna waxa waa waxyaabaha idin kaabaya inaad arintaas qabataan oo idinka waxtar idin leh oo inaad hawshaas sameysaan waxtar idin leh oo ay tahay dawladnimada liidata daciifka ah tabarta yar wixii laga heli karo inaad ka heshaan dawladnimadaasi waa dawlad daciifa waa dawlad tabar yar waa dawlad wili aan cashuur qaadan ee halkii dekadii halkii erebor wax ka qaadata iyo adduunka xusiyo waa dawlad qorogaas risaastiisa aan warshad haysan adduunka keenta marka adigoo taa ku xisaabtamaya marka hore waxaad uga haysaan taliyuhu wuxuu u yimiday in uu idin dhageysto waxa aad dooreysaan sidii kuwa kale oo ka yimid oo soo dhageysto inuu idin dhageysto wax allaala waxaad qabanaysaan asiga u qabamaysan adika isku qabanaya qodobka ugu weyn kaas waaye cid la soo khasban ma jiro nimankaas odayaasha ah oo idinka soo horeeyo walaalihiina iyaguna halkaan joogay garabkooda tihiin kuwa kale toodan kan garabkooda tihiin taliyuhu arintaas ayuu meesha u yimiday wuxuuna ka hadli doonaa ii sheeg waxa aad tiraahdaan waxaana si wanaagsan u hadli doona dadka idin ah hormuudka oo codkiina iyo rabitaankiina ku hadli doona shakhsi kastana ummad kastana waxay u baahan tahay inay qof leadership oo u hadla ay leedahay marka odayaasha aad soo filatay ayaa taliyaha codkiina ku hadli doona taliyuhuna ka bacdi markuu idin la hadlo ka bacdi ayaadna ka hadli doontiin markuu idin la hadlo oo hadalkii iyo ujeedadii uu idinku yimid oo idin sharaxo ayaad ka bacdi marka waxa laga yaabaa su'aalaha qaarkood inuu idinkaga jawaabo su'aalaha qabtay inuu idinkaga jawaabo laga yaabo oo ku hadli lahaadaan si taliyuhu su'aalaha jawaabaha idin sheego ka bacdi taliyuhu wuxuu ka tagana inaad ku dartiin waxa ay tahay in lagu qorxeeyana aad ku dartiin haddii hadalkiina uu yiraahdo afkaaga caana lagu qabay aad tiraahdaan waan ku maasantiyaa dhahdaan warku sidaas uu ku haboon yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh